cabdi waxaan ka mid ahay dhalinyarada Puntland waxa uu horeeyay waxa weeyaan oo markaa loo yeeray odayaasha dhaqanka iyo dawladda qayb ka mid ah dhalinyarada markaas wax dowr ah lagu siiyo aniga waxaan aan hubaa hadii dhalinyarada decision making lagu dar lahaa in ay ka qayb qaadan lahayd nabad badan la heli lahaa dawladda hadii ay dhalinyarada la shaqeyso ama ay soo dhaweysato waxa weeyaan horumar bay gaarayaan waxa weeyaan wadankii wuxuu noqonayaa mid ganacsi leh mid hal abuur leh mid xirfad leh mid wax soo saar leh marka hore dhalinyaradu wax jaanis ah kuma ilaahan jireen meelaha go'aamaha lagu goosto meelaha horumarka looga waramayo shaqadii oo la qabtay un baa lagu dulkeeni jiray laakiin maanta marka la joogo masiirka iyo go'aanka iyo shaqada iyo horumarka gacantooda ku jira waa meesha kaliya ee dawladnimada Soomaaliya kabashadeedu uu ka bilaabanayo isla markaana uu ku dhamaanayo jaamacadaha dalka iyo tacliinta sanad walba intaas oo kuna dhalinyarada waxay ka soo baxdaa heerarka kala duwan ee waxbarashada levelka dugsiga sare iyo levelka jaamacadda runtii dhamaantoodna waxay ka shaqeeyaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dawladnimada iyo diburiska dalkeena Soomaaliya ee runtii soo kabashada ku jira muddada dheerna bal burbursanaa farinta u dambaysa aan rabo inaan halkan ka diro dhalinyarada aan u diro dhalinyarada reer Puntland iyo dhalinyarada Soomaaliyaba waxa weeyaan dhalinyarada in ay ka qayb qaataan xuquuqdoodii ka maqnayd oo ahayd hal qof iyo hal cod oo ah mid iyaga horumarkooda iyo wadajirkooda mar walba ay ku saleysan tahay ama go'aan qaadistooda ay tahay xuquuqdaasna ay soo ceshteen ay mar walba soo dhaweeyaan runtii waxay muhiim u tahay dhalinyaradu inay ka mid noqdaan qaybayaasha golaha ama xukuumadda guud ee dawladnimada waxay muhiim ugu tahay iyaga oo metelaya ama ka turjumaya tusaaleena oo dhalinyarada guud ee dalka fahmi karana baahiyahooda gaarka iyo waxa ay dhalinyaradu u baahan yihiin